ninkan la wareysanayo fanaan caan ka ah dalka Mareykanka magaciisa waxa la yiraahdaa Ghana waxaana lagu naanaysaa B fanaankani 10 casho ka hor waxa uu soo saaray hees magaceeda uu soo gaabiyay Bushin B oo ay dadku macneeyeen kuma ay riixay fanaankan waxa lagu xantaa inuu yahay rag laga roonayaasha ama rag qoomuluudka taageera waana fanaan ay dadku aad ugu yaqaaneen dhinaca qoomuluudnimada ama inuu xoog u taageero fanaankan sidaad ka dhanaminaysa heestiisa waa hees ka sheekeynaysa galmada haddii aan heesta macneeyo waxay noqonaysaa Who Bushin P oo micnaheedu ay tahay kuma riixay P oo isaga magaciisa waxa laga yaabaa kelmadda kuma riixay in labadii casho ugu dambeysay aad ku arkaysay in dadku ay hoosta kaga qorayaan dhinaca faallada TikTok-ta oo qof walba oo Soomaali ah waxa uu soo dhigo aad arkaysid dad badan oo soo qoraya kelmadda B iyo kuma riixay oo ay ku macneynayaan haddaba kelmadda B iyo kuma riixay oo wada socdana waxaad ku aragtay meel walba oo ay Soomaalidu joogtay haddaba kelmadda kuma riixay wiil Soomaali ah ayaa TikTok-ta soo bandhigay waxaana uu si toos ah muuqaal iskaga soo duubay isagoo Soomaalida ka codsanaya inay kelmadda kuma riixay oo ay B ka horeysiiyeen ay ku sharaxaan meel walba oo ay Soomaalidu joogto oo faallada commentiga ay ka qayb qaataan waa kelmad fool xun oo wiilkani uu adeegsaday waana kelmad ka sheekeynaysa galmada iyo qoomuluudnimada waxaan uga digayaa qof walba oo Soomaali ah inuu kelmadda isticmaalo haddii aanad hore u ogeyn maanta ka dheerow ha u isticmaalin waxaanad garanayn micnaheeda inaad meel walba la istaagtid